تاريخ الصحابة كتال سيرة علي بن أبي طالب نين بايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري نينكي ugu itaalweyna gaalada ayaa soo dhaco yiri hal min mubarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya Ali baa u dhacay radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib ninkii intuu qabtay buu lagday markuu seeftay qaatuu yiri gali markuu isidina Ali ibn Abi Talib oo ninka kor fadhiyay buu qandhuuf wajiga lagaga tufay markaasuu Ali qandhuufa lagu tufay wajiga lagaga tufay gaalkiina dhulku jiifaa Alina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay Ali oo sareeya oo ka kacay Ali saxaabadii waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuuf kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu yiri lillaahiyad waxaan qaban Ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan Ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici Ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin Ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg Ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan Ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salatu wasalaam baa la hor keenay oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminkii leeyahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aasay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaab al-abraar la fi illiyin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaas qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya sida inakuba aaladan yar imika aan haysanay mobilka jaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto an-nawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanaamun ba nabigu alayhi salatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegayaa la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hor dhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo ma jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جيفني وان هردني هردد محان نقصو كعيي بولياهي markuu arko qalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu
وهبين نولش قيامهنا ومالين كليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيري آية الليل آية النهار نولش أدويدا أن كنا لهي ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عصر بإله هيري نعم الدويدا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين هبين قبرك هدي لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا واحد لوغا ديغيا قد كنار كميدا لوغا ديغيا لأن أوهردا وتضباطا كيساني الدويدا وصود علي أيا للي هلقا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لقبل أبو إلى جوغدنا وحي الدويدا بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسانيسا ووحا قبري دباتا كوا كلا كو هايستا ورؤمها يعني وي هردا مالك قيامه صورة الله عفوفو بي قبري كسو بحي دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدون كدو شيء لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكاليوب مايان مالك قيامها مركي صوبحان حسرد الندامة مرق لي أركي مايان وحاد موداب النبي يقول إنان أجيدون أركايو أيكو قبوره كصوبحي أعيد إنت اسكهر قفين إليهين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إلها وحان كم هدنا نحدنتي مرقتي أنك النقا ذي ربي جاي واكيدا فتان كبنا إيه شكور كاها ويان إيه أفعاشا وناكسني أدون كل ما درالك كغن نقضي ويان لأنه يصوب حيان يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين ما مغليسد هبين كدون واكاس قيامها مركو إلهي كورمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي طبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا طبان كنوا صنوا حسابتا كل مان دون نين عربي ورير بادية أيا سراك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبادني بودي وان نبت قلي بودي مرقا ابو النبي يقول صونقو سيادو كل نبت قشيبو كيدي بلي الشيك وعد وكريم إلهي وكريم هدو دون اسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم